وإنسان أصحابتي ما تحيّر حقيقة بيتي تحنين حقيقة روحي نوجد مرة ينام دوسان مستران كلها أوجو دارد كوشة برتاك دبوك صوتية وحن كسودة وجلس دعني أصلا وحكرايا أنا وحن جعل جوان كذا ذيقة تقدرتان دبنا ولا تمدونا جوان كذا بكدبنا وكتجيا ما تحكي وحن عارفين دعني ومسخورة عفرس وحن وما نسوي بحكرة أحلام جيفن مية وجهة في المقدار دعني وحدال كل قرني سماك بكدب دعني هو اللي يصبح حتى وحن ما نسنين وحن صحيح حنا يسوراخد ممكن وحن عارفين سو كم سير سنجوسو ما دام يجوز هاي وحشر حوسه وكرايا ما شكلن قبستين جلسون وحدايا هذا حتى إنك هاكر كنو سمينا يا رأينا ويا بندوسان صوص وحنا معنا مسترين وحكرايا وحنا بانا وراقد دعني يعني سكر جرني بندوسان وحكرايا نجد وحنا بانا جيت كل عتي دعني كيني سي بدي وحنا ركنا نجادر كذا وحنا قمنا كلين جي وحسو كارا وراقد كرنتي تقول وريجي إنك وحنا ركنا بندوسان وقريز جو وحنا سوى مسترين وحكرايا هذا وحنا صوص على قريز سام وراقدها كاقات بندوسان وحدايا بلانك بانك بحي مسترين وحنا قيارن كل دعني هو اللي وحدانا يجي وكين سوى راقدها يسوس صحيح سي بس waxaan bilaabay inaan maqaaxiso daana iyadoo markidaysa anka naamdusan qolkiis ku jiro waxa waxa biiska dumarku banaanka soo baxo waxa arkay masraan oo joogo masraan xusin ee geedkiisa dibay wad fariisnay weyn caawiyaan anka daani saqdax markay soo kacday waxay arkaysaa iyadoo shaqo ku jirto waxay ku dhaysay hadaan runta ku sheegnay maqaaxida waan ku faraxsanahay inka soo waxaan arkay masraan wadada ka soo kacay wuxuu imaanay bandada guriga wuxuu maqlay naamdusan hooyadiis ku dhahayo waxaan rabaa inaan masraan cunto diyaariyo si gurigiisa u qaato masraan markii maqlan uu baxay si uu soo diyaariyo kadib waxa imaanay naamdusan ku dhaaya ayaan ku diyaariyay masraan xudaya waa masan tahay masraan xudaya geedkii waraqada baan isku qaanaya masraan uu soo qaanaya uu soo baxaya xogaa kadib waxaan arkay inaan duusaan oo imaanay daani waxaan duusaan ku raaysaa xasuusta waraqada inta ku dibnay sharda ayaan galayna hadii aan soo ilaa ayaa ka guuleystay daani raanta ay bilaabtay inaan duusaan wuxuu xasuustay hadalkii uu masraan ku dhahay waan ku dareystay oo daani uu tagsoodoona qofka ay jeceshahay xasuusta kadibna duusaan wuxuu helay waraqadiisa wuxuu tahay aniga ayaa ka hor helay wuxuu ku dhahay sheeg sababta hadii uu jeclaatay maxay ku dhaysay hadaan ku jeclaa sabab miyaa loo baahan yahay aan ku jeclaan su'aal loogu baahnaan kal kambaniyada oo jooga waxa kambaniyada soo kale joosahay suusun xotay joosahay soo tusay magacyada dadku ka shaqeysan yahay waxa boogsi ka soo riday hogsoon kadibna banaanka ayuu ku tuurayaan joosahay iyadoo laga yaabanayo soo baxaysa buukan waxa arkay inaan duusaan daani anka daani adeerkeed wuxuu wiilkiis ku dhahayaa suuliidin jee waa laga wareegay waraqadii oo dhan waa la soo diray waan saxiixay wiilkiis wuxuu dhahayaa iyaga familkeena ka mid ahaa adeerkan wuxuu dhahayaa kor daani weynoo jibtay waa inaan ka arsanaa wuxuu dhiibay kaar wuxuu ku dhahayaa waa inaad u tagtaa masarjo oo ka shaqeeyo warbaahinta waxaad ku dhahdaa waa inaan shaqeysan kala mas'alaha xafiiskiisa soo socdo wuxuu arkay daani xafiiskiisa ku jirto wuxuu ku dhahayaa anigu waxaan rabaa inaan feelal akhriyo kadibna uu ku daminayaa axira mas'alaha wuxuu daani ku dhahayaa mas'alaha shir ayuu ku jiraa ayaan caadi ah yareesa weyn agtaysa kala mas'alaha wuxuu gooni ku jiro waxa soo wacay gaariisa wuxuu ku dhahayaa daani wixii dareemaysa in iska dheereyno si isaga wuxuu dhahayaa xoogaa kadib waan kula joogaa kadib uu soo baxay wuxuu ku tiirsanay albaabka wuxuu dhahayaa waan ku dareystay kadib waxa albaabka soo furay daani dhexdoon xaqoonay daani asal wuxuu dhahayaa feelal ayaan fiirinay hadii waan sii baxayaa wuxuu ku dhahayaa inay dhuumaysa kadib wuxuu sheegay inay mashruuc sharti ku dhigan rabaan soo qodraa go'aan fiican ay gaarteen kadibna uu ka tagayaa daani wuxuu imaanaysaa injeen waxay daani ku dhaysay process iyo waxa si fiican ugu taxadar daani waxay dhaysay wixii dokumentiyaanada la soo wadaagay oo hadaan waxa arkaysa mariyo maan ku xigto waxaan arkaynaa daani oo ay ku dhaysay daawankaas si fiican u qaadan doon si baxaya nafsiisa hooyadeeda inuu mahadcelinaysa hooyadeeda ay farxaysaa kadib waxaan arkaynaa daani inuu duusaan jooga mashruuc weyn hidikii qabanayaan xamiishku arkay laba intaan waxaan dhahayaa kuwan wali waxay eegeen kuwan quusanin dadku waxaan arkaynaa Samsung oo joogay waa bisu soo tilmaamay waxaan ku dhahay company injee waxa rabaa inaan fadeex bayna ka diyaarisiin wariyaha uu soo baxay waxaan xibaan ku weydiinay mas'alahan gacanyarihiisa wariyaha wuxuu imaanay company injee wuxuu kaarkiisu dhiibaya daani waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaan warbixin ka qaato gaarigiisa wadaayo kadib ay fariisnay wariyahan wuxuu ku dhahay waxaan maqlaynaa mashruuc weyn ee DKU group aad ku soo bandhigi rabtiin gaarigiina waxaan xasuusnay warbixin kan mas'alahan gacanyarihiisa wuxuu mas'alaan u sheegaya wariyaha uu imaaday si warbixin u qaado company injee mas'alaan uu soo caray wuxuu wacay telefonkooda manaka qabanayaan anka wariyaha wuxuu qaanay warbixin badan kadib waxaan galina xasuus maalin ka hor soo markii uu buug soo tuuray waxa uu qabanay inaan duusaan wuxuu meesha ku arkaya magacyada labada nitaano soo wuxuu dhahay magacyada waxay ka mid yihiin magacyada aan u shaqsanay ku haakarada aan waxay soo xasuusnaysaa markii ay taagnaayeen soo labada nitaano tiimku waxay bilaabeen inay baartaan sameeyaan waxayna feer ku gudbinayaan booliiska soo kadib wariyaha wuxuu dhahay tiim aan shalay joogay camal hakar ayaa loo sameeyay kan sidaas oo kale ayaa idin ku dhacay Soomaa anka mas'alaha Romani injee wuxuu ku dhahay shirkan waa in la joojiyaa iyadoo waxay dhaysaa wax walba ognaay halkan wax ka dhacayo kaliya fiirso ani wixii wariyaha ku dhaysaa hadii barnaamijka
halkan TV kasii deysa dhibka qabayso waa ogaana induusan xudaya waa ognahay cid hakarka noo sameysay deyntan waa qaadnay booskeenu geynay booskan baartaan yaabdan ku dhowna war soo xiraa anka mataana oo soo socdo waxa u maanani waxaan ku dhaaya dadka ka sameeyay leedinka shakisan yahay kadibna waa xiraa kan waxa ku ku loo shakisna badankooda waa xiray inta dhiman booliska ayaa dhameystirayso ani waxa ku dhaysaa warbixinta gudbinaysa asagana xudaya markuu baartaan soo baxayaan oo badan kadibna uu tagayaan jeeni waxa ku dhaysaa warbixinta hore kasoo daa waxa dadkaasna oo shaqaysta lagu maleynaa tan xudaya culayska duuga tagay waxa ku dhaysaa in soo diiskaarka gadaal ay jiraan toos kadibna uu tagaya mid waxaan arkaynaa daanina duusan maana maqaayada suuqyada familkeeda dubay fariisnayeen waxaan duusan ku dhaysaa abkan ninka soo saartay wax badan ayuu iga caawiyaa anku maasantahay dhanka masiraan guriga waxa soo garaacay albaab markii uu foon wuxuu ogaanayay inay tahay daanina ayadeeda waxay u keenaysaa cunto waxaan ku dhaysaa wiilkay mar walba waxa loo baahan yahay inay soo booqatid ma rabin adiga keenimada darinta sameynta ay isku celimeynaya inta ay ka diraysaa kadib laabta ay gelinaysaa waxaan ku dhaysaa wiilkay mar walba nin ay garabka taagan ninka soo waxaan arkaynaa tiimka company joog waxaan galayaan sharar hadii ay mashruuca ku guuleystaan inuu qof walba fulin doono sharadkiisa rasaan waxay dhaysaa hadii aan ku guuleysan jaceylkayga ayaa idin la wadaagaya intuusan xudaa hadii aan ku guuleysan jaceyl ayaan bandhiganaya kan masaraanka xariis wuxuu dhiibaya waraaqada wuxuu ku dhaaya xaruurta agoomada waxay u baahan yihiin garab qabad saraan wuxuu dhaaya aniga waxyaabahaas ma qabto anka habeenkii waxaan arkaynaa tiimka wali shaqo ku jiraan musuun wuxuu dhaaya ninkan bixismay namduusan wuxuu dhaaya anaga ayaa ka dhalmaanayna dadka sii baax soo bixin buuskiisa ay ku laabanaya namduusan wuxuu maanaya daani wixii namduusan ku dhaysaa aniga bay shil gaar ay ku dhintay ayay in dowlabaay waxaan rabaa toosan inuu noqdo baawarka shirka dadka ka ilaalin lahaa namduusan wuxuu dhaaya ka baqi waan sameeynayna habeenkaas waxaan arkaynaa masraan oo maanaka xiriis wuxuu ku dhaaya xabadan ku joohan juuso kadibna wuu imaanaya juusho wuxuu sharxaya mashruuciisa wuxuu ku dhaaya waxaan ku maalgelin rabnaa 100 milyan saraan wuxuu dhaaya siqaas ayaan idin maalgelinaya xasheeran idinka ma rabin juusho wuu maalgelinaya kadib masraan wuu kusoo tagay waxaan imaanaya xafiiskiisa saraan wuxuu xiriis ku dhaaya shaqo fiican ayaa qabatay xiriisan wuu farxay arankan waxaan arkaynaa duusan iyo dahalni oo soo socdaan ani waxa ku dhaysaa shirkad Moon Group inay ka qayb galayso malaynaysa duusan wuxuu dhaaya oo malaynayo kadib waxay maanayaan bandhiga kadib waxay meesha ku arkayaan mataanayaasha iyo Samsung ani waxa dhaysaa sida bandhiga uu soo qayb galka idinka baartaan ku socdo Samsung wuxuu dhaaya lacag ayaan bixinay kadib dahalni inay duusan way soo wadaacayaan anka waxaan arkaynaa Joosa iyo Samsung oo soo socdo Samsung wuxuu dhaaya waraqada mid aqoon ku jirta ayaan haay dhaysaa kadib waxay ku dhaysaa walaashida ayaan maanta soo qadayna sabab wuxuu dhaaya ma yani halkaan iska joogayaan sooska fadhiin waxa maanay Joosa iyo walaashida Joosa maxay gacaliyay waa Joosa iyo walaashida maxay dhaysaa Joosa mar walba adiga ay ka sheekaysaa waqti waxaan arkaynaa tiimka soo joogtaan waxay dhaysaa in hadafkay waa in fiina ka tagnaa dib waxay arkeen qaybta horeysiina gudbiyeen farxayaan daaniina duusan way soo garaacayaan waxaan soo galayaan keegsi ay u dabaaldegaan waxaan u imaanayaan tiimka cashaar badan kadib daani waxay dhaysaa teknoolajiyadina ay horumariyeen dad badan oo soo shaqaaleysiinayna daani waxay maanaysaa injil maalgeliyaal arhaan ganacsigeena balaarino waxay dhaysaa intaas oo soo horjeeda daaniina waxna qaysayn tagaysaa saraan oo wish karo waxay wish isku arkayaan daani way soo garaacayaan toban sano ayaa weheliyeed aniga waxay ku maalin ku fikirina ku soo raadiyo inuu duusan maalin oo waraaqada akhriistay ku soo raadiyay baaladin isku eedeysaa meesh ma taalo waxay ku dhaysaa waxaad rabteen sanadii ku ka tagna sagan xudaya kadibna uu ka tagayaan anka waxaan arkaynaa injil oo maanis bandhiga gacanta ay tahay soo xindaysa su'aalayn qaba waxay ku dhaysaa adiga waxa dhacday ijaarka waa muhiim marka shirkadda ka shaqeynaya ijaar ayaa maxay tahay sababta soo burisay sagan xudaya dad bursid way soo daawanaysaa in tahay waxay ku dhaysaa booliska dawgalaya idinku hayaan waad ku dareysateen ma santa casharada hore soo bartay way nagtaysa waxaan ka soo dawgalay Joosu wuxuu ku dhahay garaan ma xasuusta maanta hadalkan ku dhahayay company iska muasaasan karta oo heerkan oo kale isgaarsiin karta idin waxay ku dhaysaa ma xasuusta hadalkan maanta saddex heerkan soo gaarsiin waxay ku dhaysaa raaligelinta la qaatay way nagtaysa asagana waxa soo wacay duusan anka habeenkii waxaan arkaynaa duusan iyo asxaabtiisa oo imaanayaan meesha ay ka soo bilaabeen heerka iman taagan yihiin waxay ogaanayeen in dhalinyaro kireysnaa kadib gudaha ay soo galayaan duusan wuxuu dhahay aadayaan u xumaaday wuxuu dhahay maameen waxna ayaan u xiisay wuxuu dhahay kulligeen waxaan ana malaha warkaan oo dhan ayaan oo galay banaanka ay soo baxeen waxay dhalinyaro ku dhahay ma sameyn kartiin si fiican ayaa idin rajaynaynaa way ka tagayaan anka waadina duusan waxay guri ku rajinayaan boorka Samsung Tech anka waxaan arkaynaa injil oo gaarigeeda saaran anka taani ayay waxa maana wuxuu ku dhahayaa waxa loo baahan yahay karmastarkan saxiixdiisa soo tilmaamo waxa meesha maanaysan injil waxa dhaysan aniga ay saxiixayay markii injil xadkeed maqshayda oo inay laabta keenaysaa gudaha ay soo galaysaa waxay hooyada tusnaysaa waraaqada korinteeda inay adeerkeeda ka soo qaadatay waxay dhaysan mar hore ayay rabeynay ma daahmin waxay ku dhaysaa maxamed oo ma weydii ay ku aragtay waxay dhaysan aniga waan arkay waxaan soo xasuusnaysaa markii yaryaraayeen kadib injil waxay maanaysaa qof daani ay u fiirnaysaa waxay meesha ku arkaysaa sanduuqeeda kadib waxa soo galaysaa daani waxay dhaysaa sanduuqeeda waan qaadnaa waxay ku dhaysaa aniga waxaan rabaa inaan ku siiyo waxay ku dhaysaa xasuusaad qorshadan galaynin daani waxay dhaysaa injil waxay dhaysaa ka waran hadii aad company-ga balaar
naxariiso aniga waxay dhaysaa adiga tay tundiideen oo jeen waxay dhaysaa hada sameyn kaas waxay injii waxa ma sameeyo waxay ku dhaysaa baniin wuxuu u baahan yahay maalgelin marweyn waxay ku dhaysaa aniga ayaa idin maalgelinayo jeen oo madxaynaysa kadibna way ka tageysaa waxna uma nisaa mustaraan baniin jii faa'iido badan ayuu soo hada maalgelintaas ay ka baxsan inay ka tageysaa saraan wuxuu wacay namdusan kadib waxa maanay namdusan saraan wuxuu ku dhahay waxa la soo bandhigay in kambaniga maalgeliyo namdusan wuxuu dhahay sheeg sababta noo maalgelinaysi saraan wuxuu dhahay kambaniga in maalgeliyo fursad qaali ah ay noqotay aniga beerdaran ka namdusan uu ka aqbalaya weyn heshiinayaan aniga namdusan soo raacay dalin waxay xirku arkaysa qansarooba namdusan ku dhaysaa duceysa saraan wuxuu dhahay iftiinay way maxaa ka duceysanaa dadka wax isma dhaama adiga iska duceyso inuu duceysanaya kadib waxaan ka yahay namdusan iyo daalnaysa rooseen waxaan halkaas ay ku dhamaanayaan mar walba xasuusnaa in horumarka dhabtay uu san iman hal mar balse uu ka dhashay dadaal joogto dulqaad iyo kalsooni nafeed waxaa laga yaabaa inaan isla markiiba arkin natiijada bas talaabo kasta aad qaadayso waxay ku dhaweynaysaa riyooyinkaaga asxaabta dhabtaan waxay ku horseedi doonaan guul dadaalkaad maanta bixiso oo furaha guushaada berito maasintahay daawashada inuu taxniin xiga bye bye